daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada taariikh nololeedka madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Erdogan magaciisa oo buuxa waa Rajab Tayyip Ahmed Erdogan wuxuu dhashay sanadkii 1954 wuxuuna ku dhashay deegaan la yiraahdo Kasimbasa oo la jaaraha caasimadda dalka Turkiga ee Istanbul aabihii wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Turkiga hooyadii oo la oran jiray Tensile waxay ahayd gabar ka shaqeysa horumarinta dumarka muslimiinta adduunka waxay ahayd gabar caan ku ah khudbadaha iyo abaabulka bulshada waxay dhimatay sanadkii 2011 halka aabihii uu dhintay sanadkii 1988 sanadkii 1960 ayuu bilaabay dugsigii hoose oo ku yaala isla goobtii uu ku dhashay ee Kasimbasa sanadkii 1964 ayuu bilaabay dugsiga dhexe waxaanu ka bilaabay magaalada Istanbul dugsigan wuxuu ahaa Islamic School ama dugsi diini ah qoyskooda oo aan dhaqaale haysan awgiis wuxuu suuqa ku iibin jiray qudaarta waxaanu iskaga bixin jiray lacagta dugsiga uu dhigto wuxuu ahaa iskaris sanadkii 1969 ayuu sidoo kale bilaabay dugsiga sare waxaanu ahaa dugsi xirfadeed oo diini ah Religious Vocational High School sanadkii 1974 ayuu galay jaamacad ku taala dalka Turkiga wuxuuna bilaabay in uu barto dhaqaalaha iyo ganacsiga markii uu jaamacadda ku jiray wuxuu aad xariif ugu ahaa kubadda cagta waxa kale oo uu gudoomiye ku-xigeenka ahaa ururka ardayda jaamacadda sanadkii 1978 ayuu guursaday xaaskiisa Amina Gulbaran waxay ku kulmeen shir caalami ah oo uu ka qayb galay waxaana halkaasi ka bilaabmay xiriirkooda jacayl xaqiisa ka yimid ayaa keenay in ay iscalfadaan waxay isu dhaleen 2 wiil iyo 2 gabdhood waxa wiilasha la kala yiraahdaa Ahmed Burak iyo waliba Nicmadiin Bilal iyo gabdhaha oo kala ah Esra iyo Sumeya sanadkii 1979 ayuu dhamaystay jaamacaddii waxaanu bilaabay shaqadiisii ugu horeysay oo ahayd gudoomiyaha xisbiga Islaamiga qaranka garabka dhalinyarada sanadkii 1980 waxa dalka Turkiga ka dhacay inqilaab military waqtigaasi wuxuu xubin ka ahaa xisbiga daryeelka islaamka sanadkii 1984 wuxuu noqday gudoomiye degmo isaga oo matalaya xisbiga daryeelka islaamka sanadkii 1985 wuxuu u dalacay gudoomiyaha degmada ugu weyn Istanbul isaga oo xilkan hayay ilaa sanadkii 1989 sanadkii 1991 waxa loo doortay xubin baarlamaani ah laakiin waa laga hor istaagay in uu kursigaasi ku fadhiisto waxaana ka mamnuucday maxkamadda sare sanadkii 1994 ayaa loo doortay duqa magaalada Istanbul oo waqtigaasi ahayd magaalada ugu weyn dhinaca ganacsiga dalka Turkiga iyo waliba Yurubta bari xilligan waxa magaalada Istanbul haystay dhibaatooyin kala duwan sida biyo yaraan ciriiri dhanka wadooyinka ah qashin yaala meel kasta iyo waliba hawo wasakh ah iyo wixii la mid ah muddadii uu xilkaasi hayay oo ahayd 1994 ilaa 1998 wuxuu xaliyay dhammaan dhibaatadii ka jirtay magaalada Istanbul wuxuu sameeyay 7 buundo oo keenay in laga baxo ciriirigii wadooyinka shacabka reer Istanbul ayaa u riyaaqay qorshihiisa taasi oo keentay in ay kor u kacdo sumcadiisa waxa kale oo uu ku guuleystay shahaado caalami ah oo ay bixiyaan qaramada midoobay sanadkii 1998 dabayaaqadiisii ayaa lagu xukumay 10 bilood oo xarig ah kadib markii ay xoogeysteen xisbigii cilmaaniyiinta ahaa waxaana waxba kama jiraan lagu tilmaamay dastuurkii dalka Turkiga waxaana amar lagu siiyay inaanu ahayn duqa magaalada Istanbul waxaanu xukunkiisii dhamaaday horaantii sanadkii 1999 sanadkii 2001 ayuu aasaasay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo AKP sanadkii 2002 ayuu xisbiga cadaaladda iyo horumarintu ku guuleystay 3 meelood meel kuraasta baarlamaanka una dhiganta 34% codadkii la dhiibtay laakiin Erdogan ma uu noqon ra'iisul wasaare waayo ma haysan aqlabiyad uu ku noqon karo ra'iisul wasaare waxaana waqtigaasi ra'iisul wasaare Turkiga ka noqday Abdullah Gül sanadkii 2002 dabayaaqadiisii ayay maxkamadda sare laashay jiritaanka doorashadii baarlamaanka ee sanadkaasi dhacday taasina waxay fursad qaali ah u noqotay Erdogan
waxaanay u suurto gelisay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga. taasina waxay ka dhigtay xisbiga AKP kii ugu horeeyay ee soo dhisa dawlad xisbi kali ah. sanadkii 2007 doorashadii baarlamaanka ayaa la qabtay, waxaana mar labaad guuleystay xisbiga ERDOGAN ee AKP. arintani waxay noqotay taariikhda markii ugu horeysay ee muddo 52 sanadood ah ee xisbi laba jeer uu guuleysto, waxaana mar labaad ra'iisul wasaare noqday ERDOGAN. sanadkii 2011 waxaa dhacday doorasho guud oo dalkaasi oo dhan laga qabtay, waxaa mar saddexaad guuleystay xisbiga AKP. kadib xisbigii ayaa mar saddexaad dib u magacaabay ra'iisul wasaare ERDOGAN. sanadkii 2013 waxaa dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ka dhacay rabshado gelgelay siyaasadda ra'iisul wasaare ERDOGAN iyo dawladdiisa. arintan ayaa la saadaalinayay in ay u dhamaatay ra'iisul wasaare ERDOGAN iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed, balse wuxuu ula tacaalay si xirfad iyo weliba dabac uu ku jiro, taasi oo soo afjartay duufaanadii siyaasadeed ee ku kacay. sanadkii 2016 waxa uu ka badbaaday isku day afgambi oo naftiisa halis ay gashay, waxaana ololo weyn lagu qaaday koox uu hogaamiyay wadaad suufi ah oo ku nool Mareykanka, kaasoo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay afgambigaasi. sanadkii 2017 wuxuu ku guuleystay in la bedelo dastuurka dalka Turkiga oo loo bedelo nidaam uu madaxweynaha dalka awoodda ugu weyn leeyahay, halkii uu ka ahaa nidaam baarlamaani ah, waxaana lagu baaqay doorashooyin laga soo hormariyay xilligeedii oo madaxweyne iyo baarlamaan. sanadkii 2018 wuxuu markale ku guuleystay doorashadii taariikhiga ahayd ee 24 Juun ka dhacday dalka Turkiga, isaga oo noqday madaxweyne awood badan leh. daawadayaal dhageystayaal, intaasi waxaa nooga dhan taariikhdii koobnayd ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Ahmed Erdogan.